Asalaamu calaykum kusoo dhawaad videogeena cusub waxaan fiirinaynaa chartiga xaalada suuqa ku jiro waxaan kaloo fiirinaynaa jawaabihii aan ka helay Wahid Invest waxaan kaloo fiirinaynaa PayPal oo data breach ku dhacday waxaan kaloo fiirinaynaa ninkanito maxaa la oo billionaires Bitcoin ku shaqeysta wuxuu ka leeyahay Bitcoin iyo xaaladaheeda waxaan kaloo fiirinaynaa hadduu ilaah ku roon yahay maxaa waa dhibaatada haysato paymentka Soomaaliya inaan isla faano waxyar marka soo dhawaada kow aan balgalno suuqa xaalada uu ku jiro sida ujeedaan kan waa Bitcoin suuqa weli waa ila meereyso weli wax cad oo aan ku dhihi karo waa sell ama buy ma jirto inkastoo saasaanta jecleen ani suuqan weli waxaan aaminsanahay inuu 60,000 uu kasoo hoosmari karo inkastoo wax yar uu kasoo hoosmari laakiin xogoo ku noqon karo mar kale oo kan qaadid lowgan ugu dambeeya la qaadi karo sidaas darteed aniga suuqan weli jaha ma siin karo hadda jahadiisana dhaqaaqana dhaqaaq ma ahan oo ii muujinayo baay camal inuu u socdo sidaan tookada hore kugu sheegay aniga suuq waxaan jeclahay haddii aan rabo inaan baay ugato inuu xoogaa macritaa uu xoogaa qaado low qasab maaha inuu three touch inta ka sameeyo laakiin in uu qaado aan arko wax saan oo sel ah markaas aan dhihi karo okay suuqan waxa laga yaabaa inuu baay sii aado laakiin haddii uu sameeyo something like this uu three touch inta nagu sameeyo dhaqaaqanito dhaqaaq lamid ah ayaan aaminsanahay inuu suuqan samayn karo oo ilaa iyo hoostaas u aadi karo marka sidaas darteed kriptada weli waa ila meereyso haddaan dib u fiirino wixii dhacay because exactly structurekan hore usoo dhacay marka haddaan fiirino wixii hore u dhacay taanaan ka wadaa markaan ku leeyahay inuu hoos qaado soo ma jeeda lowga intuu ahaa wuu noqnoqday wuu qaaday kan waa laga hoos maray noqnoqoshadaasu sameeyey taas marka waxay tusaysaa inuu suuqan baay noqon karo aad markuu uu dhaqaaq baay oo buuxdo uu sameeyo aad la janqaadi kartid marka sidaas darteed waxaan ka sugaya inuu wax saan camal sameeyo oo uu ila qaado hoos maaragtaa intaan joognaa camal adi uu hoostaas u qaado saasaas camal sameeyo qasab maaha inuu three touch sameeyo laakiin in uu lower lowga uu qaado intii gaartiisa marka sida ujeedaan Bitcoin xaaladeeda iska sidaas kulligoodna isku xaalad bay ku jiraan meesha Bitcoin baa ka shaqeysa kan waa Solana iyadana soo ujeedaan xaaladan bay ku jirtaa waxaa kaloo jiro Ethereum iyadana oo iyadana xaaladan inta ku jirta maxaa la dhahaa iyadana aan isleeyahay meelahan inay imaataan macquula kan kuma shaqeysto soo iska tirtiri karnaa laakiin iyadana waa Doge kuma shaqeysto bayaan samayn jiray bilowgii laakiin waa ka lexday ima qancin Elon Musk waa baashan caan ka dhigay marka ninkaasna waa nin muslimiinta nacab marka waxay ku jiraan inkastoo aadan ogaan karin meelay ku jiraan laakiin shaqsi caan ka dhig ma rabaan waxaa wax fadhido oo dadka dhan ku wada shaqaysan karaan marka hal mar aan galno stock marketyada iyadana SP500 ayaan fiirinaynaa SP500 weli in lowgan way qaaday haddaa u fiirsataan idiin soo dhaweeyo lowgan ma jeedaa inta waaye kii ugu hooseeyay kan wuu qaaday ma jeedaa marka laakiin waa weli weak waxaa laga yaabaa inta inay ku filan tahay oo ay buy aado marka haddii buy aado inay inta qaado meelahan ku soo noqnoqoto kadibna ay buy sii aado haddii kalena meeshan ka sugaya ay tagto oo aan markaas ay buy aado inay meesha imaadana waa macquul laakiin aniga meeshan hadday timaado waxaa is leeyahay it may be enough arki doona insha allah iyadana waxay ku dhaqanto hadduu ilaahay ku roon yahay waxaan kaloo fiirinaynaa Nasdaq again Nasdaq iyo SP500 kuma shaqeysana laakiin waa suuqa jihinana stockyadan haysto dhan waxay ka socdaan waxaa hayo gacan ku hayo Nasdaq waxay ka mid yihiin iyo SP500 so that's why aan fiirshaa qaahwo tan waa Nasdaq iyadana xaaladii ku jirtaa meeshan nama imaan meeshas nama tegin meel dhex fadhidaa so meeshada ha fadhida wayaan manaheeda iyadana waxaan kusoo daray SPUS oo ah midda xalaasha oo lagu shaqeysan karo weekliga haddaan si fiican tagnay dailigan wahay tan waa xalaal SP500 jawaabteeda oo islaamik ah oo spus baa lahaa SPUS
waa tracker weeyaan iyadana sidaas oo kale laakiin waxaa ka maqan waxay ku bedelaan shirkadaha insuranska iyo ka bedelaan shirkado kale ku bedelaan shirkado waxaa ku jira xogaha oo doubtful ah so that is questionable laakiin xalaal bay dadka dhan ku sheegayaan sidaas darteed qofka haddii uusan ahayn qof rabo inuu suuqaaneeda maaragta barto individual stocks gato waxaas uu ku mashquulina ka rabo still inuu invest gareeyo waa kuwa lagu waaniyey kamid tahay oon ugu dhaqaaq fiican badanaana way fiican tahay SP 500 marka sidaas ula socda iyadan marka iyadan waa kusoo daray iyadana waa iska dhaqaaqii un laakiin iyadan inaan isha ku helo intaanan ka bixin aan hal mar aadno boostiga aan soo dhigay caadiyan waxaan rabaa inaan boost soo dhigo intaanan soo dubin newska iyo updateka ayaa qof wuxuu igu soo diray crypto noo fiiri intaan hadda sameeye ah iyo cardano noo fiiri cardano kama warqabo runtii marka waxaan fiirinaynaa waxyaala aan ku ogaan karo xaaladeeda soo kobna waxaan fiirinaynaa haddee tahay maxaan dhahay xalaal soo saa ujeedaan comfortable beef weeyaan kuwan ama practical islamic finance xalaal bay u sheegayaan okay so marka intaan ka baxno waxaan tegaynaa dulaha ku uron yahay maxaa ku dhacay marka aan aado hadla ada okay binance marka ada maxaa ku dhacay huge hadda ka hor aan fiiri soo jeedi kartin maxaad aragtaa meeshan maxaad aragtaa marka haddaa fiirisid inta waxaa ii muuqata aniga suuqanito in meesha labada maaqan runti structure isticmaal hadda maaqan ziray kusii socotaa marasa zero to meesha kusii socota karan maayo marka sidaas darteed waxaan ku dhihi lahaa iska ilaali bas markaa fiiri jaartiga laakiin koo aan aragna maxaa keen in suuqa hoosaas ku su'aalo waxaan tegaynaa google baan weydiiyey inaan fahmo waxya marka waxay ku leeyihiin waxyaalo ugu badan waaqan ayaan soo jiitay oo ah technical waxaa soo gala leeyihiin bug ama malware ama virus waxaas oo keenay in ay kala jebiyaan maxaa dhahay lacagta systemka ama blockchainkeeda miya maaqaan ani waa fahmi waayo si fiican laakiin tan ani waxay tustay inaysan ahayn safe ama loophole laga hela ama buleelo laga hela lagu attack gareyn karo marka ugu horeysana maaha 2024kana waa la attack gareyn mar kale marka waxaas arkay aan arkay chartigan waxaan ku dhihi lahaa is ilaali intii tabarta haddii aad rabtid way kaaga dhigan doonto inay haysatid maalkaaga wax 1% camal geli ha ka badinin haddaa ku jirtidna wixii aad kala bixi kala bax inta kalena ku hay si haddii kuu soo kabsato aad wax uga faa'iidid oo lacagta kaa dhanbe kugu soo noqon same time lacag dambena kaasi khasaarin oo badan micnaheedu waxaa haddii $1 kugu jiro meesha $50 camal geli ama maaragta $10 $20 $30 waxaas camal geli lacag aad u yar geli ama haddaa ku jirtid intaas camal ku reeb inta kale kala bax hadday soo noqoto intaas waxay ku dhalisaa faa'iido fiican in the next few years lagama hadlayo sanad iyo laba markuu arkeen mise ku dambeyn doonto laakiin ani saabsaanteeda kama helin sidaas ula soco haddaa marka hadda aan ka baxno suuqan oo aan u galno newsyadii kale aan rabay inaan ka hadlo okay sorry waa qiimahan waxaa dodada inii sheegay oo aan brokerada raadinayo واحد waxay soo siisa news oo fiican waxay leeyihiin we are absolutely thrilled that you are looking to start your ethical investment with us from Somalia marka waxay ii haystaan inaan qof Soomaaliya joogo which is good I'm happy to confirm that Somalia is one of our supported countries and we will be delighted to help you get started and our process is to download the app we recommend a portfolio based on your answers complete registration to open a fund account, sit back and monitor your performance. marka iyaga maxay leeyihiin iyaga badanaa ma ogolo ma aha meel aad ka dooran kartid individual stocks laakiin iyaga waxay leeyihiin ETF ETF macnaheedu waxaa baaquli stockyada kuu ridaa in aad baaquliga wax ka gadanaysaa stockyada kama gadanaysa laakiin indirectly waxbaad ku leedahay taas bay leeyihiin iyagana marka ETF kooda
waxaa actually ka fiican kan suppose markii la dhaho profit ahaan, laakiin waxay leeyihiin kuwo oo maxaa la dhahaa haduu la kuran yahay high risk ah ama low risk. waxay ku weydiinayaan su'aalo oo quiz baad gelaysaa, su'aalooyina la weydiinaya, waxay rabaan inay arkaan haddaad tahay qof high risk da iyo ama haddaad tahay qof low risk ah. hal ceebaa jirto oo ah payment issue. xataa haddii ay ku ogol yihiin sida lacagta ula soo baxaysaa oo Soomaaliya ula soo gelaysaa, dhibkaas meel walbo dadka Soomaalida waana ka hadli doonaa sababaha keenaya hadhow isla videogan insha Allah tacaala. kadib waxaan jeclaan lahaa inaan si gooni ah aan uga hadalno insha Allah. ninkan waa nin investor oo ah waxaa la dhahaa Michael Novowitz or something like that la dhahaa. marka wuxuu ka hadlaya Bitcoin wuxuu ka filanayo. ila dhageysta mar. An orange jacket. Listen, Bitcoin had a horrible year. And why do I think it happened? I think we crossed 100,000. We were the best performing asset over the last 5 years, 10 years, 6 years, 8 months. And it felt like we won the goddamn marathon. And we hugged. I even set a celebratory, Twitter to our entire client base. Guys, you did it. This community, I'm so proud of the community. And it's the first global brand that's ever been built by a community. It was a miraculous accomplishment. And I think that sigh of relief allowed this religious zealousness. We got to do it. We got to build. We got to relax a little bit. And you started seeing, well, we had a $9 billion seller. You started seeing some whales sell, not in a mass wave. I had a friend that wanted to buy a sports team, so he sold some Bitcoin to buy a sports team or to buy a boat. Or everyone took a few chips off the table. Listen, markets are about supply and demand and flow of funds. And as you had the ETFs and then the DATs coming in to buy Bitcoin, they were met with sellers. And once the buying stopped, it doesn't take a lot of buying to push it back the other direction, right? Markets find price based on the marginal buyer. And I think we put a low in at 60. I'm not 100% convinced, but I'm pretty convinced. And so, yes, I've been buying some Bitcoin recently. I'm talking to a lot of people. They're all dabbling a little bit. But a lot of the old guys don't have a lot of dry powder. And so what we need is new narrative. And it usually takes a while. Like I can come up with some. Worse going to cut rates. That'll be good. Market structure, I think, is going to pass, believe it or not. Not positive, but I think so. I literally got a call from Chuck Schumer 3 nights ago. He's like, damn it, we're going to get this thing passed. Okay, ninkan wuxuu ka hadlaya wuxuu ku leeyahay Bitcoin sanad xun bay heshay oo ay tahay bear market ku jirto. wuxuu kaloo ku leeyahay sababta u dhacaysa waxaa ka mid ah inay 100,000 kor u dhaaftay. because 100,000 ahaa ideal goal oo dadka kriptada ku jira dhan ay target gareynayeen. marka wuxuu ku leeyahay kriptada waa wax especially Bitcoin waa wax community da dhistay oo markaas kuma jirin institution iyo kuma jirin community da dhisto ku leeyahay. markii 100,000 la gaaray xogaa relax baa dhacay, dadku waxay bilaabeen inay iska gadgadaan. waxaa ku jira ugu leeyahay qof raba inuu team oo sport ciyaar inuu gato Bitcoin ku ka gatay. marka ninka billionaire la socda. marka wuxuu ku leeyahay taas baa dhacday. ETF yadana ma rabaan inay lacagtaas badan ka bixiyaan. marka suuq waxaa malaysaa inuu baayarkii xoogaa slow noqday, taasoo keenaysa suuq haddii uu waxba la gadin hoos u aadaa. sidaas darteed wuxuu ku leeyahay waxaa dhacday arrintaas taasoo keenayso in uu suuqa hoos aaday. marka wuxuu ku leeyahay futureka sida kaliya lagu bedeli karo waa inuu narrative imaadaa oo ah news positive ah. interest ratekii hoos loo dhigay, suuqii maxaa la dhahay Mareykanka oo market structure bill weeyaan oo Bitcoin kriptada fasaxayo oo ay ku samaysan karaan stable coin waxaaseeto. marka tuwaas hadaa dhacda wuxuu leeyahay positive way kor bay usii keli doontaa. laakiin lacagta waa lacag loogu talagalay in hoos aado si tan anaa ku darsanaya in ay maxaa la dhahay in ay si ay raqiis uga gataan. marka inta waxaan hadda idinku iri waxaa ka mid ahaa inta inay hoos aadi doonto. suuqaneeda ma kala fireyna ilaa liquidity la dhiso oo dad badan laga cuno lacagtooda.
waxaan institution ETF-yada soo gala waa BlackRock iyo soo dadka on dad trillions haya marka taas darteed waxay leeyihiin suuqan hoos buu u dhacay maxaa la dhahaa hoos inuu kasii aada ayaa macquul ah buu ku leeyahay isaga taas oo la mid ah sida aniga 60,000 ka hoos mari karto waana newska socdo waana arki doonaa insha allah haddii ay suurto haday saas noqoto iyo haddii kale newska saddexaad aan rabay inaan idinla qayb qaato waxa weeyaan waxaa dhacay wax la yiraahdo PayPal data breach dadkiina PayPalka I know PayPal Soomaaliya inay ka shaqayso oo qofku furan kara inkastoo sida ula soo bixi lahayd lacagta oo gashan lahayd ay adag tahay balse ay dad dhalinyaro badan oo freelancers ay ku shaqaystaan marka iska ilaaliyan ilaa passwordkiina bedela iska jira maadaama PayPal data breach ku dhacday badanaana waxay ku leeyihin refund baan sameynaynaa laakiin waa si maraqa ku secret waxbay kugu siinaa marka is ilaaliya passwordadiina bedesha isha ku haya insha allahu tacaala so waxaan rabay inaan kana idin tuso waxaa jira wax la yiraahda deriski macnaheedu waxa weeyaan markii wadan uu dadkan wax qalalaasada wado magacooda ma rabo inaan sheego al ka bilaado in ay yihiin waxyaalaha keenayo waxyaalaha laga baqo waxaa waaye in lacagta lagu dhaqo money laundering ay dhacdo gurubyadaasna waxyaalahaasi ka faa'iidaystaan taas ayay leedahay in wadanka uusan ahayn dowladdaas tooqsan oo wadanka dhan gacanta ku haysa uusan jirin in wadanka uusan waswatin oo corruptionka uu yahay oo there's no anarchy ay tahay ama wax iswata aysan jirin taasaa keenayso in riskin lagugu sameeyo macnaheedu waxa waaye bangiyada waxay sameynaya analysis waxay leeyihin wadankan u qalmaa in aan xiriir la yeelno in aan bangigeena iyo lacagteena iyo wax u dhigno hadday dhahaan haddii riskiga arka inuu too high yahay macnaheedu haddii riskina kugu sameynaya marka high riskiga ayaa keenaysa in aan dhibaatooyinka keenayo soomaaliya inay tahay lack of correspondent banking soomaalida bangiga doolar ma diri karna mana loo soo diri karo so marka waxay usan badanaa isticmaalaan bangiyada waxay ka furtaan Kenya ama Djibouti iyo meelahaas si ay u sameeyaan jiiradaas wadamadaas especially Djibouti waxa laga yaabaa in Soomaali lacag u diri karto kasoo dirisan kartid taasna ay haysato ID system fiican uusan jirin dadka tirikoob laguma hayo one vote one person wuxuu ku fiican yahay waxa waaye tirikoob baa dhacay qof walba ID inuu haystay noqonaysaa meel lagaasoo doontaa helaysaa ani hadda waxaan rabo samayn karo haddii aan adduunkaas wax kasoo qaso oo intuu kusoo noqdo baasboorka ayaa lasoo raadinayaa waxaa lasoo helayaa adreskayga meeshaan deganahay magacayga ayaa la deganayaa meeqa carruur leh dhanaa lasoo helayaa marka iskama samayn karo waxaan rabo waayo baasboorkayga waa ID-ga aniga igu xiran oo nolosheeda dhan ku xiran marka taasna waxa weeye dhibaato kaloo jirta iyadana waxaa kaloo jiro xataa xawaalooyin systemka aad u isticmaalnaa which is good because waa system kaliya noo furan oo aan ku caawin karno isku caawin karno especially dadka iyaga diasporadan ku caawin karno dadka Soomaaliya jooga laakiinse system ma aha oo informal ma aha system oo sharci ku taagan waa sharci waa informal macnaheedu waa trust ani markaan xawaalo wax ku diraayo ma hubo inay kuu soo diri doonaan laakiin waa aaminsanahay aaminaad baa jirta inaan aamini karo waayo horeyba shaqadan usoo qabteen dad kale way u qabteen baa jirto waa trust system buu ku dhisan yahay regular oo central bank oo sharciyeysanan ma haysano regulation oo adag haysta ma qabno taasna waa dhibaato kaloo iyadana jirto marka sidaas ula socda dhibaatooyinkaas ayaa keenaya inaan maanta dadka Soomaali jooga ay paymentka ku adag tahay intaas weeyaan newska idin haya insha allah waa isla jooganaa waa inuu next time wabillahi tawfiiq